kulmiye waa maasantahay goornabeed xarunta madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya waxa looga yeeray warbaahinta waxa kulan lahaa guddiga doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya kuwaasi oo ay maanta lagu waday inay soo saaraan jadwalka doorashada waxaan maalmahan taagnaa khilaaf u dhaxeeya guddiga doorashada iyo madaxda koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa markaa madaxtooyada gaaray ku dhawaad 100 in ka badan xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ayagu diidanaa in doorashada waqti lagu daro musharaxiinta oo ka mid yahay musharax Sheekh Mukhtaar Roow Cali Mansuur waxa uu isna gaaray u socday xarunta madaxtooyada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo halkaasi si uu ula socdo jadwalka iyo maxaan ku raadayay guud ahaan doorashada sida markaasi guddiga kulanka ay leeyihiin hase yeeshee sida lagu kalsoon yahay ay inoo xaqiijiyeen wariyaasha qaarkood ee horay u galay madaxtooyada waxay markaan jagboontiga koowaadkii labaad aan gaarnay mar quraan ka war helnay in Sheekh Mukhtaar Roow Cali Mansuur ay xireen ciidamada tirsan kuwa Itoobiya oo ayagu markaasi ilaalada madaxtooyada guud ahaan agagaarka airportka ay ka yihiin markaasi AMISOM ciidamada Itoobiya waxay la sheegay in Sheekh Mukhtaar Roow ilaa hadda aan loogeyn meelay ay geeyeen hase yeeshee dhinaca airportka iyo gudaha markaasi xarunta weyn ay ka degan yihiin la geeyay daqiiqado kadib kulmiye markaan meesha anagoo taagan waxaan sidaas uga badneen waxa ilaaladii Sheekh Mukhtaar Roow Cali Mansuur iyo sidoo kale ciidankii ka yimid magaalada Muqdisho kuwa booliska iyo sidoo kale ciidanka Itoobiya halka inoo muuqdeen kuwa la isku hub aruursanayay daqiiqado kadib waxa bilaabatay rasaas aad u xoogan anaga ma xaqiijin karno cid rasaasta ama xabada ay bilowday hase yeeshee xabad aad u xoogan ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada iyo guud ahaanba agagaarka madaxtooyada koonfur galbeed ee Soomaaliya muddo 15 daqiiqo waxaan markaasi ka badneen ayay xabada socotay durba dadkii waa la soo kala cararay magaaladii dadkii isla markii waxa laga war helay in Sheekh Mukhtaar Roow ay ciidamada Itoobiya ay xireen isla markaana ilaaladiisa iyo ilaalada markaasi madaxtooyada iyo guud ahaan ciidamada halkaasi joogay isku dhaceen marka xabada hadda way degan tahay meel kasta magaalada kamid ah xabada ka dhacaya dadka aad ay u baqayaan oo dhibaatooyin amni oo hadda degdeg ay soo food saartay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay guud ahaan waxa hakad galay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha oo markaasi ay meel walba ay taagan yihiin ayagoo ka baqdin qaba in marka dadka magaalada Baydhabo way degan tahay doorashadii lagu waday inay dhacdo 19 bishan waxay u muuqataa markaasi in hadda jahawareer kale waayahay marka hadda guud ahaan magaalada jawi degan tahay war cadde waxa la leeyahay magaaladii waxa ku soo qulqulay maleeshiyaad dheeraad ah oo aan ka tirsanayn ciidankii booliska kuwa AMISOM iyo kuwa koonfur galbeed magaaladana hadda ciidan badan ay la circiraysaa la leeyahay maxaa ka jira وماسنتها واسدا sheegtay ciidamo aad u fara badan ee muuqday oo cabdibilyaal ay saarnaayeen kuwaasi oo ciidamo booliis iyo kuwa daraabiis iyo sidoo kale ciidamo kale oo markaasi ayaguna ka tirsan ciidamada jooga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay marka sida sheegtay magaaladu waqtigan la joogo waa ciidamo ay la circiraysaa meel walba ciidamo waysan oo fiijgnaan ku jira oo u muuqato magaaladu inay tahay maanta magaalada dagaal ayaa ka muuqata in badanna dawladda federaalka Soomaaliya waxa lagu eedeynayay inay markaasi ay gacanta kula jirto doorashada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ay ciidamo ka badan 200 oo askari oo booliis ah ay u soo dirtay marka guddiga doorashadii oo kala jaban musharaxiinta qaar oo markaasi doorashadii walwal ka qaba in markaasi ay dhibaato iyo ay kala kulmaan oo ka mid yahay Sheekh Mukhtaar Roow hadda ciidamada Itoobiya ay xireen marka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay markaan ka warmo magaalo istiraatiiji ahaan aad u wanaagsan hase yeeshee dadka ku nool yihiin dad markaasi xabad iyo dhibaato aysan jecleen